ولا فيسبوك يجي والله هيستنى والبوستية علي وبوستية أحمد مدوبي أحمد مدوبي واسكا بدلي والله يقوم معي بوستية علي بان لبحي بوستية علي هداد أركتام بوستية أحمد مدوبي ويجي لا الصعدة حبار قبها صلى يقول قال يوعن كبد الشيء مدوب ودنب حبار قبها سان وقتلي مركا بوستية علي ويجي ما كسو قال فيسبوك هذا كبعد بوستية علي وبوستية أحمد مدوبي أتقينين شير قراية ومدى قارسية حيلا دانتا قارسية شعب كالصوماليين اللي يردي دماتا يام واحد قارسينا يا وعدنا يا وابا دماتا شوي نقدر راضيها نقفل هذا maanta iyo bariba qaranka sii maamul dadku kaama maarmee maanta iyo bariba qaranka sii maamul
marka ugu horeysa inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta emotionary baan ahay aad iyo aad laakiin nabar aad sugaysay naxdin ma laha ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu acuudu billaahi min ashaytaan rajiim bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah xasbuna allahu wa namca wakiila لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحن أدرها aan leeyahay tacsi u dirahayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto qaranka Soomaaliyeed ciidanka militariga Soomaaliyeed baan u dirayaa tacsi aad iyo aad aan ula ilmeeyay saraakiishii lagu laayay Gurceel saraakiishii lagu laayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahaa waa uga tacsiyeenayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dawladdeedan uga tacsiyeenayaa gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee difaacan uga tacsiyeenaya gaar ahaanna waxaan uga tacsiyeenayaa waalidkood iyo qoysaskoodii iyo caailadoodii tacsi baan u dirayaa waanan ka xumahay inay dhintaan naf walba mar bay baxaysaa ajisheedana lama dhaafin karo halkaa inay ku baxaan wiilashaa waa u qoray ilaahay xaggiisay ka qorayd ilaahay qofuusan dilina aadana ma dili karo walow loo laayay raggaas ciidanka ah ee maanta aan u baahannahay ee militarigii waddanka difaacayay iyo shacabka iyo diinta iyo dalka loo laayay in habar gadir iyo mareexaan la isku diro baa loo laayay macno kaloo loo laayay ma jiro maamulkan galmudug fiqi ninka la yidhaahdo ciidanka difaaca u qaabilsan oo ay u doorteen iyagoo ogaa ilaa iyo habeenkii 91 inuu ninkaas ummadda Soomaaliyeed ka soo horjeeday oo cadowga u shaqaynayay oo jaajuus ahaa oo mataqaanaa qaran Soomaaliyeed nin raba iyo ummad Soomaaliyeed inay dawlad yeelato nin raba aan ahayn ayagoo ogaa baa Xasan Cali Khayre iyo qoorqoor kas iyo maag waxay ugu doorteen galmudug wasiirka difaaca bay ugu doorteen tan oo kale inuu dhigo bay u dooranayeen xasan cali khayraana ka dambeeyey oo qoorqoor galmudug u geeyey qalalaaso inuu ka wado oo aan dawladda iyo galmudug isu soo dhowaan aad iyo aad baan uga xumahay aad baan uga tacsiyeynayaa waxaanan doonaynaa dawladdayadu inay tallaabo lixaad la ka qaado oo indhahayaga wax nagu tusto oo wiilashaa dadkii ka dambeeyey saraakiishaa dadkii ka dambeeyey gacanta dawladdu inay ku soo dhigto nalana tuso waa qof walba waa la dilaa dawladdu waa soo qabataa nama tusto wax nooma sheegto nagama dhaadhiciso emotionally baa maskaxdeena noqota dadka haldoorkiisa markii la baabi'inayo dawladdu ma aha inay fiirsato waa inay soo qabato tallaabana ka qaado sharciga oo sharciga waafaqsan taasaa shacabku ku degi karaa taasaa shacabku dawladda ku ogolaan karaa taasaan dawladda ku taageeri karaa dawladdu dadka la baabi'inayo ee dhallinyarada ah ee ciidan leh ee shacab leh ee gabdha leh ee wiilal leh ee gumaadku ku socdo iyo isir baabi'isku dawladdu tallaabo inay ka qaado waaye dawladdu iyada waddanka iyo dalka iyo diinta mas-uulka ah qof walba waa dhintaa gurub walba waa la dilaa allaha u naxariistaan caqli ka dhigan allaha u naxariistaan xoog ka dhigan ma aha dawlad xoog badan baan leenoo ciidamaan noo jooga waxa weeye mucaaradku indhacadda waxay u keeneen inuu qalalaasan dhigo dawladdan rido doorasha dhicin saasaa indhacadda loo soo celiyey oo fidmadii uu ku jiri jiray loogu soo celiyey marka waxa weeye dawladda waxaan ka doonaynaa dawladdayada inay tallaabo sharciga qaado ciidanka nabad sugidda nisa waxa weeye inay tallaabo ka qaadaan waaye galmudug ragga lagu laayay dadkii laayay way heli karaan waa inay soo qabqabtaan al-shabaab maaha maamulka galmudug weeye maamulka galmudug baa mishinkan ka dambeeyey ayadoo loola jeedo in laysku diro labada qabiil ee dariska ku ah halkaa labada qabiil habargidir iyo mareexaan qorta in laysu geliya wiilasha iyada u dhintay oo loo baabiiyey nimankii difaaca dalka ahaa waxaasna waxaa ka dambeeya mucaaradkaa ka dambeeya cid kale oo ka dambaysa ma laha nimanka mucaaradka ah marna xamar ku shiraya marna garowe marna kismaayo marna nairobi marna imaaraat weeyaan dawladdu waa og tahay tallaabo sharciga ha ka qaado waxaan codsanaynaa haddaanu shacabka nahay hooyooyinka nahay dhallinyarada nahay wiilal iyo gabdhaba waxaan codsanaynaa dawladdu tallaabo la yaqaan oo wax ku oolan indhahayaga saarna inay arrintan ka qaado wayna arrintaas sidii hore ugu aamusi jirnay sidii kuwii hore la leen jirayo allah u naxariisto looga gudbi jiray aan looga gudbin mahadho waa inay dhacdaa waa in la soo qabtaa raggii ka dambeeyey iyo raggii laayey dawladdu inay soo qabato weeye baawar iyo awood bay u leedahay nabad sugid baa joogta booliis baa jooga asluub baa joogta militarigii baa jooga 16 kun baa xamar xaadir ku ah gobolladana waa joogaan weliba gobolka galgaduud ee wiilashu ku leedeen ciidankii danab oo dhan baa jooga ha lagu amro ha la soo qabto wiilasha wixii laayay
dowladduna maxkamadda noo soo saarno qof walba inta la dilo dowladdu inay noo aamusto kuma qancayno kumana taageeri karno dowladdu waa inay tallaabo qaadaa annagu dagaaloo wax baabi'i ma lihin laakiin ragga laaya ha la soo qabto qof kasta oo wax dila ha la soo qabto sharcigana ha la marsiiyo waa laba beri baa la haynaya waa la sii daynaya qabyaalad baa lagu sii daynaya iyo laaluush iyo wax daran waa shaqaynayaan waxaas dowladdu indhaha fudho indhaha madaxa kor ha u qaada dowladdu cadowgeedu waa badan yaho gobollada way joogaan waa ogna laakiin dowladdu awood bay leedahay maanta ay tabarta darayd ma aha waan u garaabaynay maanta uma garaabayno marka waxa weeye qorshuhu waa isku xiran yahay ilaa kismaayo ilaa xamar ilaa maxay hargeysa ilaa garowe ilaa galgaduud waa isku xiran yahay qorshuhu mucaaradka jooga oo dhan baa waxaan maleegaya hargahan xiraya dowladdii furfuraya hadba lagu siibaya hadba meel ka daacinaya horay inay u socoto ma rabaan gumaysi bay u shaqeeyaan imaaraad iyo kenya iyo washish iyo gaalo ka shishaysa baa soo kiraysanaysa waxa lacagtii axmed madoobe uu ku laayey kismaayo ragguu ku baabaashay lacagtoodii dhiilkuu galay hadduu u doontay muxuu ahayeeto hadduu u doontay imaaraad hadduu u doonto shalubax imaaraad buu aaday lacagtiibuu soo qaad geesiyadii waa laayey buyi dhallinyaradii waa laayey wax ku oolkii waa laayey birmagaydhadii waa laayey hallaysiiya lacagtaydii amarkii waa fuliyey saasuu axmed madoobe ka yiri dubay waa la soconnaa wariyayaal baa meel walba noo jooga waxa weeye marka dowladdu inay waxa la rabay hawada ka xidho hawada inay ka xidho baa la rabay dowladdu shaqada ay qabanayso oo keliya ugu fudud iyadoon dagaal iyo problem ridin waxa weeye nimankan ku fatiglaynahaya hawadeedna waa inay ka xidho kismaayo diyaarad kama duuli ka hadday dhahdo dowladdu tii duushana ay hawada markay hadda kenya ka soo duusho oo imaaraad u socoto xaggay madhaa ma etoobiya iyo jabuuti bay madhaa maya hawada soomaaliyay madhaa dowladdeenna la kor maray oo lasii kormaro dubay lagu tegey oo lasoo kormaray oo nairobi lagu yimid oo lasii kormaray oo dubay lagu tegey dowladdu marka maxay tahay ma faraajiin baa hawada haddayna ka adkayn hawadii baan la soo wareegin maxay u tiri dowladdu maxaa ka dhawaajiyay u tiri hawaan la wareegi ma iska aamusnaato hawadiiba haddii lagu dalandoolahay oo nimankii mucaaradka ha ku dalandoolayaan oo amarkooda diiday oo yidhi annagu doorasho ma rabno dhicina mayso ciidanka milatariga ma rabno waddankan uma baahna ciidan milatari waxaasay ku dhawaaqayaan maalin walba dowladdiiba dhagahay ka furaysat shacabkii iyo ciidamadii baa meesha ku baaba'ahaya wax la qaadan kara maaha wake up baan leeyahaa dowladda kaca oo indhaha fura milatariga soomaaliya waxaan ugu digahaya waan ugu yeerayaa amar cidna ha ka qaadaninee difaaca waddanka oo soo qabta nimankii ragga laayey saraakiisha nimankii guruceel ku laayey soo qabta cidna ha uga aabadayna cidna amar ha ka qaadanina amar la'aan xataa ceel waa ku gala amar la'aan ceel waa ku gala ama dhinta ama difaaca waddanka ciidanka soomaaliyeed saasaan leehay ee milatariga soomaaliya see waaye hal qof haddii amar laga qaato waddanka hal qof ma wadi karo waa baaba'aya aaway wasiirkii ciidanka difaaca aaway wasiirkii xasan xudubey aaway xagguu ka bax ragga la laynaya muuse isag wasiir u ahay aawe odawaa aaway tallaabo sharciya odawaayow qaad cidna ha uga haybaysan saraakiishaa dadka laayey soo qaba odawaa wax qabyaalad la dhahaa ma jiraan meeshaan waxaa ka jira qarandhise iyo qarandumis qabyaalad ma laha shuqulla kuma laha qabyaalad qaran baa lala diriraya dowlad baa lala diriraya ummad soomaaliyeed inay noolataa lagala diriraya ciidanka soomaaliya ha qaata abaartiisa wasiirka difaacuna ha qaato xilka loo xil saaray ha qaato sidii islow annaga dadka la baabi'inaya yuu noo dhowran oo indhaha ka fiirsan maxaa islow lagu beddelay inuu shaqeeyo wasiirka amnigu wasiirka difaaca dalka soomaaliya maxaa la dhahaa xasan xudumey muxuu u fadhiyaa tallaabo sharciya inaad qaadda waa fahad yaasiin waxa weeye waa generaalka nabad sugidda nisa maxaad u fadhidaa halla eeda nimankaas halla eedo halla soo qabta wixii xiran waxaa laga rabaa nisa iyo wasaaradda difaaca yaa laga rabaa maxamed cabdulaahi farmaajo lagama rabo ra'iisul wasaaraha lagama rabo ku-xigeenka lagama rabo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka difaaca
ayaa laga rabaa iyo hay-adda nisa ee amniga Soomaaliya yaa laga rabaa nimanka inay soo qabtaan ee gudaha la dhigo sharciga la marsiiyo oo ay eedaan wiilasha bilaashka u laayeen waddanku dawlad buu leeyahay waa inay shaqaysaa ama dawlad ma leh waa in la dhaho oo la dhaho dawlad ma jidho oo dawlad ma haysano oo cadow baana haysta mucaarad la yiraahdo cadow mucaarad la yiraahdo oo madax kuti ah oo taraytara oo khaaymeyna oo cadowga u shaqeeya baa waddanka xukuma hal la dhaho waa Dani iyo Axmed Madoobe yaa kala waddanka xukuma Dani iyo Axmed Madoobe xukuma Dani iyo Axmed Madoobe iyo Xasan Sheikh iyo Shariif Sheikh Maxamuud baana ka dambeeyay iyo ina Cabdishakuur baa ka dambeeyay wiilasha in la laayo fiqi bayna adeegsadeen fiqi qorqorna waa dhex taagan yahay kamana u jawaabin qorqor waa dhex taagan yahay gobolkiisii baa shilku ka dhacay ilaa haddana ju iyo jac lagama hayo xataa wiilashii uma u tacsiyayo marka qorqor dhan u baday oo la soo cadeeyey qorqor dhan buu bad dawladdu marka indhaha ha fudho indhaha shacabka iyo ciidamada ha badbaadiso waxa weeye marka haddii maalin walba wiilashii iyo dhallinyaradii la laynayo oo shacabkii Soomaaliyeed aaminsan yahay oo ayna ka mudaharaaday oo ayna ka kacayn oo ayna dawladda ku qaylinayn oo ayna ciidamada ku qaylinayn oo ayna nabad sugidda ku qaylinayn oo shacabku wiilashooda badbaadsanay dawladduna waa seexanaysaa shacab waa dawlad shacabku muxuu la aamus muxuu la fadhiyaa shacabku saraakiishii la dhameeyey waddanka cadowga ka difaacaysa oo nimankan mucaaradka ka difaaci lahaa hortoodaa lagu dhameeyey ha la kaco oo reer galmudug oo dhan shacabka mudaharaado yaa lagu mudaharaadaya nimanka mucaaradka oo shilkan ka dambeeyey al-shabaab kama dambayn hog iyo hantoolay ule abshalaaba inayna ka dambayn waa la soo cadeeyey al-shabaab cidna wax ma yeesho baadiyaha lagu cayrsanayaa nimanka mucaaradka ee Hargeysa jooga ee Garowe jooga ee Xamar jooga ee Kismaayo jooga ee maxaan ku yiraahdaa Dhuusamareeb jooga baa iyo basabaaska dhalinyarada lagumaad haya ka dambeeya cadow shisheeya kama dambayso Kenya iyo Imaaraad iyo cid kale midna kama dambayso Amisom kama dambayso dawladdu kama dambayso mucaaradka arrintan ka dambeeyo no al-shabaab wax dhaxaaba inta ragaya iyo wiilashayada la baabi'iyay yaa waxa nolol ku sheekeeyay al-shabaab baa baabi'isay al-shabaab ma nabi ba ma daahir ba ma daahir cirkas ka soo degay ba soo nimankii saqiir gowraca sameeyay ma iyo umuladoox see loo dhigi karaa iyo looga aamusi karaa al-shabaab baa raggii laayay markii la dhaho see looga aamusi karaa see loogu qanci karaa waay shacabkiiyo dawladdu maxay la aaminsan yihiin gobollada dhan shacabku waa inuu ka mudaharaada lixdaa wiil in la eeda waayo mudaharaadku iyo istaagi awood kale ma lihin inagu awood baan jirin dhankaygo afkii baa juuqba qabay ummadda Soomaaliyeed afkii baa juuqba qabay maalin walba dhac iyo dil iyo balaayo iyo goodi iyo 91 baa lagu noqon haya iyo waa la idin baabi'inaya yaa niyaddii looga jajabiyey dawladdu way dadaalaysaa wixii karaankeeda laakiin tallaabo walba oo dhacda dawladdu inay action samayso waa nimankaa in la soo qabto waa sharciga in la taago waa fiqi iyo qorqor soo qaban mayaan nisaha soo qabato ciidanka danab ee galmudug jooga waa inay soo qabtaan nimankaa ee militariga Soomaaliya booliska Soomaaliya si ay dhiida kulligeen isugu tago nimanka soo qabta idinka amni u gobolka saraakiishiinii baa horteena lagu laayay maanta qabiil ma shaqaynay maanta qabiil laguma layn raggaas mucaarad baa laayay dawladda iyo say isaga hor keenaan raggaas ciidamada militariga Soomaaliya iyo dawladda si la isaga hor keeno baa wiilasha loo laayay qabaa'il baa loo laayay sidii Maricaan iyo Habargidir la isugu diro baa loo laayay dadka laynayana waa qolo walba Axmed Madoobe baa ku jira Muuse Biixi baa ku jira Dani baa ku jira Xasan Sheikh iyo gruubkiisa iyo nacaladaas ku jira waa lagu wada jira qorqor lug buu ku leeyahay qorqor iskuma sanbanaana clear maaha abadan qorqor dawladdu ha iska ilaaliso haddaba gasho rag ha la daba dhigo qorqor rag si ay dhii haddaba kacdo dawladna natiijada baa la rabaa wax qabata oo siyaasaddii dibadda waa ka adkaateene siyaasadda gudahana u dhaadhaca oo ka adkaada oo naga qabta haweyda waraabayaasha naga qabta iyo dhurwaayaasha iyo qurunka shalay markuu lahaa Dani ciidanka militariga ha laga soo celiyo gado markuu lahaa dawladdu waxa la rabaa inay ku dhaqaaqdo oo ciidanka ceel waaqayso
maxaa yeelay qaniya kaa fujisa hadal baa hadal kaa fujiya gacan baa gacan kaa fujisa dharbaaxa kaa fujisa inuu eedaa la rabay dowladdu waa u aamusa axmed madoobe wuxuu yidhi anigu geli mahayo ma gelayo buu yidhi ma gelayo wood gobolka jubbaland kama dhacayuu yidhi doorasha kama dhacayso dowladdu waa u aamusa military force haddaan la adeegsan waddanka waa la qabsanaya 14 ninoo maafiyada ah ee deni iyo xasan sheekh horkacayaan iyo muuse bixi baa qabsanaya waddanka dowladdiioo taagan ciidankiioo taagan madaxweynihiioo taagan ra'iisul wasaarihiioo taagan shacabkiioo taagan kabisa way qabsanayaan waayo dowladdu maba jawaabayso yaa gacan ka diririyay afka may ka jawaabta dowladdu maxaa afka haysta actionna waa loo baahan yahay maantoo kale action baa loo baahan yahay in la qabto qofkii oo sharciga la keenaa loo baahan yahay gacan bira in lagu qabto sharciga la keeno baa loo baahan yahay maantoo kale waxba ma tarahayo horumar baan gaarray iyo cirkii iyo dhulkii baan soo aslaaxin dadkiina hoostayadu ku dhammaaday wax available ma ah wax shaqaynayo available ma ah waxaan yeeri kalnana ma ah dowladdana waa ka diidna arrintaas dowladdu inay tallaabo qaado waayo oo qofkii qof dilaba gudaha dhigto sharciga in la geeyo waayo qofkii qof dila dastuurkana waa ku taal kitaabkana waa ku taal maxay sugaysaa marka dowladdu waxa ay sugaysaa waayo yay amar ka sugaysa kenya iyo imaaraad baa xirxiraya dad oo soo adeegsaday macaaradka hal dharbaaxa hadday ku dhici lahayd oo hal nin laga xiri lahaa idaba yeelan lahaayeen dowladday waxay ka arkeen inayna kala jeclayn wax la dilaayo wax la baabi'inayo wax la qaxinayo inayna kala jeclayn may dowladda ka arkeen marka waa gartood inay wax walba ku dhiiradaan hadalladooda ay ku halaaqahayaan baa la rabay dowladdu action inay ku beddesho ciidamada jubbaland ha laga soo bixiyo gada ha laga soo bixiyo okay ha la geeyo marka ceelwaaq hadday saas yidhaahdeen macaaradkii ceelwaaq ciidanku ha ruqaansado ceelwaaq ha tago wax annagoo dumara oo dibadda joogna aan garanayno dowladdu maxay la garan la'ada hashumaankayga gadee ma masaar bay liqda yaa hashumaankayga gadee ma masaar bay liqda see wax u jiraan xaggee harguu ka xiran yihin maxaa dowladda dabray shisheeye annaga naguma soo duulin ciidan military force oo cir iyo dhul iyo bad iyo beri ah oo nagu soo duulay ma jidho 14 inoo jawaasiisaa laynoo soo dira oo cir badan nagu soo mido miyirla oon waxba garanayn dowladda dumiya keliya garanaya wax kale ma garanayaan soomaali ma garanayaan diin ma garanayaan ilaahay ma garanayaan cirbad baa lagu soo dhiftay dumiya dowladdaa la yiri weli dowladda dumiya baa ku qufulan wax kale farmaajo tuura ma ahane wax kale oo ku qufulan ama ay garanayaan ma jidho waa duran yihiin nimankan imaaraad baa nagu soo dirdhay iyo black water baa soo duray in lala jahaado waayo marka gacan baa gacan kaa reebta af baa af kaa reeba dharbaaxa kaa reebta barya ciduna kuguma daynayso dowladda yada xukuumadda maxamed cabdullaahi farmaajow barya maanta ma taagna barya laysku dayn mayo xaq dhowr laysku dayn mayo waxeerin laysku dayn mayo maxeer wax la dhaha waa dhammaan diintii iyo dhiiggii dadkaa laysu soo qaawiyey oo hortiina lagu baabi'inayaa saraakiishayadii waddanka difaacaysay wax la dhowran karo waxa kanu maaha wax loo adkaysan kara maaha wax laga aamusi kara maaha maxay qabanaysaa hay-adda amnigu muxuu qabanaya si degdega nimankaa loo soo qabta weeye shacabkuna waa inuu mudaharaado gobol kastoo ay joogaanba ka mudaharaada wiilasha baa la baaba'shay wiilasha la xasuuqay qabiil ha u arkina qalbigu idin dilaaciya qabiil ha u arkina meesha qabiil ma yaal ciidan qaran waa ciidan qabiil ma aha waa ciidan qaran waa astaantii ummadda soomaaliyeed waa qarannimadii ummadda soomaaliyeed waa nimankii waddanka cadowga ka difaacayey reer hebel weeye ha u arkina wax reer hebel la dhaha ma jidho meeshaan sababtoo ah nimanka waddanka baabi'inahaya waad u jeedaan axmed madoobe yuuya waa ogaadeen yuu yahay deni majarteen buu sheegtaa laakiin waa nin sinjibaari ah oo asalkiisu ka soo jeeda tansaaniya majarteen wuu ku dhex koray laakiin muuse bixi yuu yahay muuse bixi waa amxaar isaaq buu ku dhex koray axmed madoobe waa tigree naag soomaaliya garcatay oo tigree intuu garcaday waa axmed madoobe ka dhash war saa wuxuu fahma war ummadda soomaaliyeeday nimanka idin halaagahaya waa caynka sheekh shariif iyo in cabdishakuur iyo odowaa iyo ninka la dhaho iikeen maxaan ku iraadayay shariif sheekh axmed waa ciyaalkii la foola waaye
ubixii kacaanka ee la foole kabisa dhaar baan ku marahayaa dhaar xalaal niman ku dhashay oo dhiig soomaaliyeed leh waxay samaynayaan ma sameeyeen wacalladii baas oo maxamed siyaad barre nugu koriyeyoo la foole dhoobnaa weeyaan oo jaynis helay inama kala jecla qabiil shuqul kuma ay leh soomaali ma rabaan haddana khawaariin bayba noqdeenoo waa qoladan mataqaanaa iikeen khawaariijka waaye waa wahaabiyiinka khawaariij oo u shaqaynahaya waddamada carabta khawaarijku la wareegay la sacuudiga iyo imaaraad iyo masar iyo cumaan iyo waxaasoo dhan waxaa la wareegay khawaariij baa la wareegay runtaan anigu idiin sheegahaya laakiin soomaalidu runta ma jecla mana dhegaysato allah habar baa darooryayso alla oday baa dareen galayey alla madan baan kaleeyaayey alla heellada inoo tuma saasaad ku jirhaan soomaaliyeed ku jira saas oo ciribtiinna ha la dhammeeyo awalba waddankaanu ma hadlahayo waa dhul nimca taallo qofkii qabsadaana qofkiisa qof allaaliyo qofkii dhulkaa qabsada soomaaliya waa qofkiisii ma ayna kala jecla innaga iyo carab innaga iyo kenya innaga iyo etoobiya innaga iyo ejibti innaga iyo gaalo nama kala jecla dhulkan wixii qabsada shuqulkuma leh waa dhul ilaahayo malyeeraana oo in lagu dhaqmo lagu socdo ee bahay inoogu fidiyey qoladii qabsata dhulku hadli mayo maran kala jecla waxa u baahan dhulka waa innaga inaan ku noolaanno iyo inaan difaacannaba innagaa u baahan dhulka maxaa la rabaa marka nimankan cadowullaahiga ah ee awalla tigreega iyo u shaqaynahaya imaaraad iyo sacuudi carabiya haddana kenya iyo tigree iyo sacuudi carabiya iyo imaaraad u shaqaynaya ee qabiilka aad ku daba socotaan ee qabiilka aad ugu naagaynaysaan ee sandareertada idin siinahaya nimankan ka soo horjeesta shacabku waa inuu ku mudaharaado ciidanka nabad sugidda iyo militariga soomaaliya wiilashii dhintay raggii dilay baan ka rabnaa now dowladduna waa inay amar ku bixisaa wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka difaac waa inay amar ku bixiyaan in la soo qabta nimankaasoo sharciga la horkeeno hay-adda nisa waa inay soo qabataa booliisku waa inuu soo qabtaa militarigu waa inuu soo qabtaa kabisa wax kale oo soconayaa ma jiraan xaqiiqdu taas waay waxaan ka hadlaynaa haddii alla idmo oo kale oon u hambalyaynayaa ama maaragtay aan taageerayaa ururka horumarka iyo difaaca mudullood abgaal afhayeenka ama guddoomiyaha afhayeenka mudullood abgaal muxuyadiin xasan afrax baaqii ay soo saareen ama wareegtadii ay soo saareen waa ugu hambalyaynaya samatalis bay noqdeen waddanku dagaal yuu gelin bay dheheen doorashadu xilligeed ha ku dhacday dheheen nimanka mucaaradkaa runtay u sheegeen afhayeenka mudullood abgaal muxuyadiin xasan afrax wax wanaagsan baad samaysay soomaali dhaba baad tahay waa kugu taageersannahay waana kuu hambalyaynaynaa adiga iyo communitigaagaba aad baan idinku hambalyaynaynaa maanta soomaaliya meel baa uga soo baxday guruub kasta iyo qabiil kasta odayaashooda iyo waxgaradkoodu sida odayaasha mudullood abgaal ha u hadlaa ee guddoomiyaha uu u yahay muxuyadiin xasan afrax baaqay soo saareen oo kale qabiil walba waa inuu soo saara oo looga hor imaanayo dadka mucaaradka waa u digey muxuyadiin xasan afrax waa u digey ma rabnuu dhahay annaga dagaal iyo burbur iyo baaba magaaladan xamar uma rabnuu dhah baa guddigaas idhaahdeen guddigaas mudullood abgaal ee afhayeenkoodu yahay muxuyadiin xasan afrax wax fiican bayna tuseen qowl wanaagsan bay ku qowleen cadaalad bay u hadleen soomaalinimay u hadleen waddaninimay u hadleen ummadda soomaaliyeed waa u dhibriyeen magaalada xamar qalalaasay uga degeen mucaaradka waxay dheheen haddaa awood isu haystaan doorashada gala ama raayo ama ku guulaysta idinkaa ikhtiyaar leh laakiin dagaal uma rabna annagu waddankan doorashaa lagu rid jiraa dal dhis baa lagu jiraa dowladdu waa abaabushanaysaa waa dowlad curdana dagaal ma rabnay dheheen communitigaas
communitigaas mudullood abgaal waxay dhaheen dagaal ma rabno idinkamana yeelayno mana ogolin waa ugu hambalyaynaya aad baan ugu hambalyaynaya waad mahadsantihin waddaniyiin baa tihin reer walbana saasaa laga rabaa odayaashooda inay dhahaan raggooda waxgaradkaa inay isu yimaadaan dhallinyaradooda iyo dumarkooda inay isu yimaadaan mawqafka iyo go'aanka maanta mudullood abgaal ay gaareen in reer walba gaara ayaa loo baahan yahay reerka deni iyo muuse biixi iyo axmed madoobe futada ku haysta yaa ee qabiilka u taageersano aamusanow ka hadla mawqafka dowladnimada iyo qarannimada iyo jiritaanka ummadeed ka hadla oo ka mudaharaada oo iska soo qabta nimanka tuugta ah 14 ku shiraysa xamar axmed madoobe muuse biixi iyo deni iyo guruubadooda iska qabta shacabka uu iska qabto mudaharaada mudullood abgaal hambalyaan u dirahayaa anugu guddoomiyahooda hambalyaan u dirahayaa baaqa uu soo saaray waa bogaadinaya waana taageeraya soomaalinimo baa iiga muuqata halkaa soomaalinimo bay muujiyeen aad baana dadkiiyo dowladduba ugu qanacsan yihiin waana mahadsantihiin baan idin leeyahay meesha ka sii wada ha joojinina ka dhabeeya hadalkiinna ka dhabeeya mudullood abgaalow muxyadiinow hadalkaaga ka dhabee muxyadiin afraxow hadalkaaga ka dhabee wad oo ha joojin halganka saad u bilowday weeye halganku 4 sano 5 sano 6 sano 10 sano baan annagu halgan wadin saan dowlad u helno si ummadda u badbaado si waddanka iyagu qaran u noqdo si aan dhagarta shisheeye uga badbaadno marka waxa weeye oon halkaan hadda ka hadlaynaa ilaahay kuma samadaraadee nimanka nabadda aan rabin ee ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku haya ee mucaaradka la baxay ee waxaa la yidhaahdaa madasha qarandumiska musharaxan waa madasha qarandumiska musharaxan iga raalli ahaada samboor baa igu kacsan haddaan daawadiisii samaysanaya insha allah waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed inay u midoobaan cadowgooda wakaa saraakiishooda lagu laynahayo waddanka dhexdiis maanta hadday dagaal iyagoo ku jira oo maxaan ku idhaahdayay jubbaland ka dagaalahaya ay dhintaan maciil baan qabi lahay dowladdiina waa istoobgarayso tallaabo ma qaadi kadhaan baa la yidhi ayagiina 10 baa loo dilay dowladdii raggay iska celin lahayeenna dowladdii baa u diiday oo tiri hal tallaabo ma qaadi kadhaan war maxaa nagu maray marabaastan maxaa nagu maray waxa weeye ilaahay hadduu kuu roon yahay beenii ma soo qaban karo beenii wuu xanaaqayaa magaceediina waa iga qaban weyday shankaroon waa iga qaban weyday shukri aan ku dayo shukri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ma hadli karo cunaha ay kala go'an madaxa ay firirsan wadnahay dhag leh maanta xanaaqaygu wuxuu taagan yahay 100% emotionalina waaban ahayba saraakiishii waddanka difaacaysay baryantii in lagu laayo dowladdiina aan weli baa ka soo bixin wax laga qaracmo waayo halow haa
waxaan isku dhex yacanaan ku aragnay life baan ku jiraaya arrintaa ka hadalo aidiyadaada ka dhiibo fikradaad qabta ka dhiibo life baan ku dhex jiraa waxa weeye maxaa meesha ka dhacay noo sheeg hadalka noo faahfaahi dowladda maxaa uga aadan nisaam maxaa uga aadan militariga maxaa uga aadan afkaaga furo hadal ka hadal meesha waxaan ku jiraa life baan dhex fadhiyaa abaar dhanna waa hadlayo iimana soo gashaanoo lifeka markaan soo galo iima soo gashaan facebookgaba kuma jidhaanba haddii maanta aan ka dhiigto firkadeeda dadka la laayay xooga dalka ah qaranka ciidankii saraakiisha qaranka waxa weeye aad iyo aad baan uga xunnahay waana u tacsiyeynaynaa ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto naxariistii waa dhaca laha siiyo dadkoodii iyo heliyadii ay ka tageen oo soomaali oo dhan bay ka tageen ilaahay sabir iyo iimaan buuxa allah ka siiyo marka waxaan ku leeyahay walaashay raggan dilkiisa waxa ka dambeeyey waxa weeye danley weeye waa danley baa ka dambaysay nimanka jasiira fadhiya nimanka jubbaland fadhiya nimanka puntland fadhiya halo waa ku maqlayaa soco ku soco kulle klug bay ku leeyihiin waana isku xiran yihiin dadkaasi qaran soomaaliyeed ma rabaan umana baahna waa kuwii dacwada waday ee turkiga lahaa ee ciidana loo dhisin waa kuwii lahaa ayaanada ka cafin daynta waa kuwa diidan qaranka waa kuwa ciidankii qaranka ee xoogga dalka soomaaliyeed ee qof kastoo wadaniya uu ku faraxsan yahay oo markaad aragtid adiga dhammi wax kaa kacayaani jacayl aad u qabtid ciidan xoog dalka ah leh maleeshiyaad weeye oo kenya dhulka baabi'in jirtay baa la geeyey maxaa loo geeyey maagada laga soo cesho la leeyahay kii allaaba leeyahay waa gart dadkaasi waxay u shaqaynayaan nin imaaraad iyo kenya iyo masar iyo yuhuud iyo sacuudi iyo intii ilaahay uu kadeecay oo dhanba oo inaga cadowino ah ayay u shaqaynayaan waa gart maanta in cabdishakuur iyo daleyda meesha fadhiya iyo xasan cali khayre haddii ay kulligood intay tashadeen ay dhaheen ciidamada xoogga dalka aynu layno oo aana qabiil ka dhigno waxaa idinka yeeli maynaa laydin yirde waa gart waxaas waxaan yeelayna maaha waana laydinku ogayahay dembigaa waana laydinku qaadi doonaa maxkamad baa laydin soo taagi doonaa life laydin soo taagi gabadheed hadday had waa sax waxa weeyaan dadkaani aana qabiilla looma laynay kas baa loo laayay madaxweynuhu la beel yahay baa lagu laayay madaxweynaha ayay la beel yihiin ku xanuujiya waxaa la yidhi dadka madhibaanka loo yaqaano waxay hadalka isu yidhahdeen kaasi hawdhig ma u malaynaysaa in laysku dhifanayo laba lafood habar gadir iyo mareexaa ninka galmudug u ah wasiirka amniga waa fiqi waa saqajaankii jaajuuska ahaa ee kenya meesha u fadhiyey weye waa oga nimankaan isagaa soocay nimankaan isagaa gaariga saaray waddadii ay mari lahayn wadda aan ahayn baa loo leexsho waxaan iyo taaha aadinayna taa mara waa gart ciidankan waxaa isku soocay oo isku reerka ah oo soocay waxa weeye waa ciidan la mishimaya buu ahaa waddadii ay mari lahaayeen waa laga leexsho waddo kalaa loo leexsho waxaa lihi tani waa xun tahay taas mara ha aadinina taa waa gart ugu jiro baa loo duway waa gart waana garteen waa niman cayra waa niman reer ayaanla ah waa niman noocaasa baa lihi nimanka laayay waa gart xasan cali khayre iyo maxaa raadaay ninka leedahay daahir cali sow iyo nimankii kaloo la joogay fiqi kulli waxay dheheen mid baa wuxuu ka lahaa social media tacsi baa la ii soo dhiibay waxaa loo tacsiyeynayaa ninka ceeli baa loo tacsiyeynayaa hore xabadaan loo wadin baa ku dhacday waxa weeye nimankaa meelan waxba nagama dhexeeyaan walaalaanu nahay waxbaanu wadaagnaa waxbaanu isku nahay laakiin kuwa kale waa sax raggi
kii kabaha lagu aasay ayaa loo laayay aanadoo واقر kabaha ku aasay yay ahaayeen way afka kii weeraray yuu ahaa kii amarka bixiyay yuu ahaa wasiirka amnigu yuu ahaa meeshaan ujeed baa laga leeyahay waxaa la rabaa madaxweynaha iyo dadka dhan la isku dhuftaa la rabaa nin walbaaba wuxuu leeyahay 91 baa lagu noqonaya waxa igu maqaalan ka dhex gale 91 baa lagu noqonayaa baa la leeyahay 91 ku noqon mayno ninkay ku hartay bayna hawlahaysaa wixii toodi gashaan baa la dhimanaya ilaahay واقر waxaan maqlay 3 nin baa taleefon ku wada hadlay mishinkaana soo alifay fiqina amarka siiyey xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur iyo siciid cabdulaahi deni baa taleefon ku wada hadlay kabacdina waxaa la yidhi waxaan adeegsanaynaa fiqi nadwagaa kaa xun adigana waxaan adeegsanaynaa deni marka may maqashaa saddexdaas nin saddex baan horta filinkanba waxaa keenay baa layidhi 3 nin waxa weeye cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali khayre iyo siciid cabdulaahi deni 3 nin baa taleefon ku wada hadlay waxaa la adeegsanayaa oo amarka la siiyey fiqi waxaa la yidhi arrintaas mishinka noocaasa waa inaad samaysaa wanalkii xamar wax looga qaadi waa marka gobolkaas hadda muxuu ahayeeto galmudug baanu Chinese ka heli karnaa meeshaanna waxaan in la isku dhifto maahane oo nabad iyo nolol qalqal la geliye fadhi ma yaallo markaan 3 nin amarka ay Soomaali waa og tahay boostayoy nimankaa shirkii ugu dambeeyey ee ku soo kala kaceen ee ugu dambeeyey ee Masar kula jirtay ee Gabra kula jiray ee cid kasta kula jirtay waxaa lagu yiri ninkaan ina farmaajo sirdoonkiisa iyo taageeradiisa kama guuleysanayno haye nin waliba uba gurigaagii ku noqo reerkaagii dabada la gal dadkaaga hube wadanka qalaaso iyo dagaal laga abuuro haye xaqiiqo Nairobi iyadoo ka soo tagin baa warkaas ka soo baxa waagar ilaa waxa ma qarsoomaan meel walba warfaafin baa taaganay waagar nin walba reerkiisa ha u tago waa inuu hubeeyaa waa inuu wadanka dagaal geliyaa si kale ninka looma afgambi karo loogamana adkaan karo dagaal waa in la geliyaa siciid cabdulaahi deni inuu ka xarig ku leeyahay waan garanayaa oo dhuxulaysta inuu xarig ku leeyahay waan garanayaa oo nimanka jasiiro fadhiya oo maxaa dhahdaayay ayiri musharaxiinta isku sheegay ee jaajuusiinta ah musharaxu waa ku kaambeynka geli jiray waa ku geli jiray gobolada dhan mari jiray waa tuu taageerada iyo kalsoonida dad ku doonan jiray waa tuu soo bandhigi jiray wax allaale uu qabanayo nimankaan dalka inay burburiyaan baa loo soo diray maya musharax ma rabaan tabnigaas weeye nimankaan laguma sheegi karo waa tabtaas weeye qaswadayaal wey nimankaan aad iyo aad nimankaan waa in lagu mudaaradaa meel ay joogaanba waa inay dadku kacaan dadkaana dhinte ilaahay subxaana watacaala baana oofsaday maantana maxamed cabdullaahi farmaajo intuu jasiira weerar ku qaado nimankaa ha u soo aaro ama ha qabto cidna ka yeeli mayso maba samayn kara de wax la samayn kara ma ka xoog weyn buu ku jiraa muqdisho oo dhan baa kacaysa maya wax la samayn karaba ma ahaba madaxweyne ma samayn kara waxaasoo kale waxaan ku weydiinayaa meeshii shirku ka dhacay hadday galmudug ahayd galmudugna rag badan oo dowladda ah joogaan oo ciidamadii dowladdu joogaan booliiskii joogo nisa joogto danab joogto wax tallaaba ama xukun ay leedahay oo maamul ka shaqaynayo wax tallaabaha oo ay ka qaadeen ma maqash network bayna haysan si wuxuu yiri nimanka waa la laayay wax kale faahinana ma jiro laba nin waa la yahay
هاي عندما الندوة ما هيستو إلا بدلاني بلا كو قبستو الندوة حتى ما هيستو استريد وايا الندوة حمر إيو ميلها كالوضا بدلان الندوة ما هيستو nimankan adugu waa la mashibo waxaa la yidhi niman tababar loo soo xiray seminaar soo siiya baa lagu yidhi وافقي بقى كشقينيا inay ku socdeen iyo inay ka yimaadeen ma kala caddayn karo laakiin seminaar soo bixiyaa la yidhi waa laga shaqeeyey waa la isku soo daray raggaa la soocay weeye kabacdina jidkaa ciidan loo dhigay ciidankii loo dhigana waxaa la wadaday mari lahayn maaha waddo kalaa loo leexiyo waxaa la taamara وأيقو مركي لسوعة هي إني تعذر سنة أيام بك وقتي قوضي بعد ما ضايع مركي لسوعة هي laakiin ninka fiqi la yidhaahdo xilka waa in laga qaadaa galmudugna waa inay arrintaa ka dhididaa oo ka kacdaa shacab iyo waxgarad iyo nooc walba dadkani galmudug weeye ma aha beel kale kama imaan waa dadkii galmudug ahaa waa saraakiishii galmudug waa ciidankii xoogga dalka galmudug maanta taa haddaynan ka dhiidiin hadda inay godob xambaarsanayso ha ogaan قدبت معاه كدر يقع بقى من قودي هلسكو جراي الشباب باب اللودي بيا قلب دقو فقيو الشباب هاللودي لو قد يقول nimankaan waa la soo socdaa kanaala kan fadhiya oo Siciid Cabdullaahi Dariya ninka dhuxulaysta nimanka jasiira fadhiya kulli waa fare waa la isla shaqeeyaa fiqi baa ku jira isla oo la shaqeeya nimankaas oo la ogaayo inuu la shaqeeyo la ogaa oo jaajuuskii iyo u fadhiya ah meesha waxa weeye nimankaan waa la fadhiyaa waxa weeye kulli waa fare weeye male shaqoolkana waa la wada maleegay waxa weeye waxaana lagu xumaynayaa farmaajo waxaas waxba ka dhigan maayo waqti cadaalada tibaado baa jiri doona ilaahay idanka ka dhigo insha Allah waqti cadaaladi ay tibaado ayaa la heli doonaa wixii nool ummadda wixii dhintana dhinte laakiin waqti cadaaladi ay tibaado oo la isla xisaabtamo ayaa dhici doona haddii ilaahay idanka ka dhigo wixii iga dambeeya haddaan dhinta ha ogaada waqti la isla xisaabtamo ayaa imaan doona nin walbaaba dembigiisu meel buu ku qoran yahay nimanka awalba dembiilayaasha nimanka awalba badii gatay nimanka awalba gabdhihii gatay nimanka wadankii baaba'shay de nimanka wadankii oo dhan baaba'shay ma gabdha gad baa loo joogaa wadankii oo dhan bay baaba'sheen nimankan subxaana watacaala waa idin annana waa idin jeedna gabadha ninka nooshaana cadaalad waa laidin soo taagi doonaa haddii ilaahay idanka ka dhigo إن شاء الله آدي بعد ما تنتهي خير الله كسيو وقف كلام بالفيرين هيا وكسي دين هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو بني السلام عليكم وعليكم السلام هذا اللايف بان كجرا waxaan doonayaa inaad arrintii hadda shilkii wiilasha ka hadasho si asluub loo qurux badan oo Soomaalidnimo aad uga hadasho adigoon cidna duraynayn inaad maaragtay sidaad uga xuntahay iyo si Soomaalidu inay ka xumaato ka mudaharaado ka kacdo هي كسو بحشقة وأنا سيها اللي الله مستعان وحوايا مركة وحوايا مركة دواء نبا انترنف قشي سفر بوعها وغاربو دلي واو قشو هرقي بكسيبي بيركي كليه بوعوني انتي هارو انت جيت كنت غارو ساس جيدا وقسمي بوحي دوايو hilibkan baan rabaa ma qaadi kare inaad adigu ii qaado oo aynu wada qaadano oo meel markaynu degno aad adna intaada qaadata anna intayda gaaja ay haysay aan soo sho luwaagi ballan buu qaaday wuxuu yiri waa yahay neefka anaa kuu qaadaye waxaad yeesha buu yiri iga hormar oo hortayda soco waa yahay buu yiri ninkii hortiisu socdayo luwaagi hadba suu u goosanaya cad
u goosanaya cad baa meeshii waxaa la gaaray lagu qaybsan lahaa hilibka dhurwaagii oo lafa keliya wada oon xabad hilib neefkiiba ku harin nimanka mucaaradkaa hadda waa caynkaa waa dhurwaagii dhoomaha loo dhiibtay dhurwaagii neefka hilibkaa loo dhiibtay weeyaan bal dowladda maamulka galmudug fiqi markay ka dhigahayaan wasiirka difaaca qofka indhahala qofka dhagahala qofka curyaanka ilmaha saqiirka sabiga kan waddankaba joogin way og yihiin inuu mucaarad yahay jaajuusa oo imaaraat iyo kenya biil ka qaata dukaama ka furtay baqaara ka furtay meelo waaweyn oo bisanisa ka furto gurya ka dhista jaajuusnimada waa la ogyi marka shacabka galmudug markay ka yeelayeen in laga dhigo wasiirka difaaca in laga dhigo maxaanku idhahdaa fiqi dee waa dhurwaagii neefka hilibkaa lagu raray maamuladii iyo shacabkii iyo wixii oo dhan iyo dowladdii iyo wixii oo dhan baa silloon waa arrin silloon qofka taraytarka oo tuugga ah markii meel loo magacaabo in laga hor yimaado waaye dowladdu awali inay ka hor timaado waaye maamulka gobolku inuu ka hor imaado waaye baarlamaanka gobolka ka jira ee golaha shacabka ee gobolka ka jira inuu ka hor imaado waaye sida hadda ninka baarlamaanka ee golaha shacabka haysta garowe ee gulusyada xira ee muusikada wato heesaaga ah cantarabaqashka heesaha tiri baa waxaa la yidhi guddoomiye golo shacab buu noqon karaa waa macquul ma ah maxamed siciid cabdulaahi deni maalintii dhoweyd wuxuu 8 xildhibaan lahaa xasaanad kama qaadi karee lagamana qaadin xasaanadoodii way haystaan waa ka hayuubinay oo loo mashquulinahayo oo ninka ka socda ee qareenka ka socda qareenka ka socda oo dhahaya madaxa ilaalintan ka socda oo annaanka ah oon waxba garanayn meesha soo fariistay oo yiri intaasoo qodoba dembi yahay galeen iyagooma dembi gelinba waxaa loo baasabaasaynaayay oo dhan oo wiilashaa loo mushimay oo xasaanad baa laga qaaday loo lahaa oo ninka gulusyada xiro oo golaha shacabka fadhiya garowe ee mistikada garabka ku wata ee xayawaanka aba xayawaanka aan dadnimo iyo cilmi iyo caqli iyo diin iyo maadi midna aan garanayn oo ugu dhawaaqahaye waxay ahayd 3 nin oo aqalka sare dadka dani rabo inuu ka soo saarto oo aan baarlamaan ku hadlin golaha shacab ku hadlin oo aan laga doodin oo aan la dhex geyn 36 gacanta taagaysa oo mustikaaluhu wato keliya ayaa saxiixa haya baarlamaankii qaarna waa maqan yahay 8na waxaaba laga qaaday xasaanadii baa layo waa la arbush oo waa la mashquuliyey xeer ilaaliyihii ku dhawaaqay inay dembi galeen oo maxkamad u geynayo waxaa intaas oo fal ah iyo intaas oo dembiya loo sameeyey 2 milyan oo lacagaa lagu baashay arrinta intaa la eg ee basiidka ah 2 milyan baa lagu baashay shacabkiina dad baa u dhintay gaajo iyo oo baaba'ay gaajay u baaba'een lacagtoodii waa la diido waa la xanin dadka waxa arbushkaasoo dhan loogu samaynay oo indhasarcaadkaa loogu samaynay dani wuxuu rabo inuu dowladda federaalka u dirsado oo aqalka sare 3 nin bay ku leedahaan u malaynayaa puntland 3 nin free inuu u dirsado dad isaga nacamle u ah sida dhaman cad iyo kangurusyada xira iyo 26 xildhibaan iyo kuwa wasiirada u ah iyo wax nacamta ku hayo aan xishoon inuu kuwaasoo kale uu doorto oo u dirsado aqalka sare ayaa intaasoo mishina loo sameeyo 2 milyan ugu bax dadkii oo baaba'ayo gaajo u baaba'ayo shacabka dani waxaan leeyahay iska qabta shacabka puntland dani iska qabtaan leh kole dad caaqibe leh ma tiide isimadiinni waa la gatay dani baa gato laalush bay qaataan culummadiinni waa la gato dani baa gato laalush bay qaataan waxgaradkiinni waa la gato dani baa gato dani ma gadana imaaraad baa gadatay gadatay dadka waa hadduu isin yahay hadduu wadaada yahay hadduu nin caqli la yahay hadduu siyaasi yahay puntland wixii joogay imaaraad baa iibsatay dani baana dulaalka ah shacabkiina waa la iibinayayo saasaa loo boobaya waxba ma oga lax dhukano abaar ma oga sidii nimankii badda iyo gatayoo waddanka dhacay oo dhihi jiray ma ogi bay leeyihin madaxuunoo kabtan ayuun la baxay oo muraafaqa oo 7 hool guban oon diin haysan
oo gaal ah oo isaga iyo daahir calasow isku xirteen ayaa nimankaa sheegay in qabiil loo dilay deni baa ka dambeeyey buy in cabdishakuur baa ka dambeeyey buy waxaa xasan cali khayraa ka dambeeyey bay dheheen afkoodaan ka baqalla afkooda waana isla fadhiyeen kabtan ayuub iyo daahir calasow waa isla fadhiyeen arrintaasu markay dhacday mishinkaasaana isu geeyey nina jarmal buu joogaa nina holan mishinkaa inay ka wada hadlaan oo puntland iyo nimanka xamar fadhiyo jaajoosiinta ah ay maaragtay arrintaas shirqooleen ayagaa inoo sheegay cabdullaahi siciid cabdullaahi deni waxa weeye waa la qabanaya horta goor la qabtaba laakiin waxa ceeboobay oo sharaftii ka dhacday oo karaamad seegay oo cawaan isu beddelay waa dadka puntland jooga isimada walaha shacabka iyo maxaan ku idhaahdayey culummada shacabweynuhu waxba ma oga waa la baaba'shay waa la bahdilay waa la xiray waa la dilay waa la qadiyo cuntadii baa laga soomiyey lacagtoodii baa loo diiday ma hadli karaan afkay dhulka ku dhiftaan wax u hadlana reer puntland ma hayaan maanta oo kale waa maalintay dhici jidhay tollaayey war nimanka naga qabta war ragga puntland joogow nimanka naga qabta dibad iyo daakhilba dadka puntland u dhashayow war nimankaa naga qabta war aaranjaan maca culummadooda maca isimadooda maca golaha shacabka war waa noo shirkoobeen war shacabkii waa baaba'ay war gobolkii waa baaba'ay war ma waa puntland rag lahayn war ma wayna wax garad lahayn war ma wayna wax ilaahay yaqaan lahayn war puntland qof ilaahay yaqaan ma jooga miyaa kama dhalan miyaa dibad iyo daakhilba kuwa dibadda waa ku taageersan yihiin maxaa yeelay welfare bay qaataan dowlado ay ka shaqeeyaan bay la joogaan carruurtoodii waa u badbaado jaamacadiyo iskuulaad bay u dhigtaan dowladaha ay la joogaan baa ka bixiya guri dowladeed bay ku jiraan qaxooti bay yihiin halkaasay caloosha xoqanayaan waddanka waxa ka dhacaya iyo shacabka baaba'ayana ragga puntland iyo naagaha puntland ee dibadda jooga ma kala jecla welfare bay qaataan oo dowladay magan u yihiin puntland hadday gubato hadday baaba'do haddii shacabku baaba'o shuqul ay ku leeyihiin malaha kamana dhalanba maxaa u diiday waa waxgarad la'aan waa caqli xumo waa qabyaalad waa burcad deni bay xoolaha la cunaan ragga dibadda jooga ee reer puntland deni bay xoolaha la cunaan maxaa u diiday cabdi xirsi maahane sheekh cabdi xirsi maahane maxaa intooda kale aamusiiyey laaluush baa lagu siiyaa dibadda qabqablayaashaa laaluush la siiyaa communitiyaasha kuwa hor joogaa laaluush la siiyaa baarlamaankii baa laaluush la siiyaa waxgaradkii oo dhan baa la dulleeyey isimadii baa laaluush qaata culummadoodii baa laaluush qaata ama takfiir ha ahaadaan ama alakhwaan ha ahaadaan ama sunna wa jameeca ha ahaadaan imaaraad baa iibsatay wixii waxgarad ahaa oo puntland imaaraad baa iibsatay kuwa dibadda jooganaan caqli xumo iyo jaahilnimo bay uga aamusan yihiin gobolka baaba'aya gobolka la isir duugayo ee la dhammaynayo ee dhallinyarada iyo shacabka la gumaadayo wax walba inta lagu sameeye maanta baahiha loo dilo dani go'aan ku gaarayo ay ku wada raaceen ilaahay dullo idinkama bixiyo dullooba daandaan u dhinta magaciinnana allaha bi'iyo puntland dad ma joogo puntland iyo kismaayo waa isku mid dad ma wax garad male wax caqli leh male wax cilmi bartay male waa jaahiliin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa soo socota maalin la xisaabtamayo ninka dadka dhacaya oo dilaya oo cuntada u diidaya oo lacagtoodii vaalid ka dhigaya oo gaajo inay u baaba'aan raba ninka kala soocaya ninka qaarna xadaya qaarna baabi'inaya iyo inta ku raacsan dibad iyo daakhilba maalin lala xisaabtamaa jiraysa banka qayaame maalintii banka la afuufo ilaahay waxba qarin mayo wax walba dadkaa la soo hordhigaya wax walba xisaabtan baa imaanaya aadana idinla xisaabtami maayo inta taraytarka ee cadowga u shaqaysa ee ummadda baabi'inaysa ee dowladda duminaysa ee midnimada diidan ee dadka kala furfurhay ee kala googoynahaya ee ciqaabaya ee dilaya ee gabdhaha kufsanaya ee mucaarad qarandumis
madax kunti taraytar maalin ilaahay la xisaabtamayaa imaanays maalin ilaahay la xisaabtamayaa imaanays maalin cid inkiri ka dhaayna jirin baa imaanays maalin qof kastoo aad disheen dhiiggeeda la idin cadaabayaa imaanays xoolaha iyo carruurtana waa laydinku fidmaynaya dadka dambiilaha ahow oo taraytarka ahow oo ummadda baabi'inayow oo ummadda gubayow oo dowladda ridayow oo midnimada noo oggolayno oon qaran noo oggolayno ee gobol walba joogow waxaa imaanaysa carruurtiinna iyo naagihiinna iyo gurigiinna ayaa dhibaatadu ku bilaabanaysa dukun daakun baa minallaahi la idinka dhigaya cuquubada waddanka iyo dadkaa idinku dhacaya xaqdiga aad samaynaysaan baa idinku dhacaysa qaa'in wadannimada idinku dhacaysa dowladaha aad u adeegtaan baa xabad xabad assassination idinku dilaayo taas madaxa gashada ilaahay waa adkaadaha xoogga badan ilaahay waa caadil addoommadiisana isagaa abuurtay addoommada dulminaysaan allah abuurtay ilaahayna waa idinka jaasaynaya kuwa dembiga faraha kula jira iyo kuwa ku taageersan ee u sacabtumahaya ee qabiilka iyo sandareertada ku raacayow ilaahay meesha ka geli lahaydeen baa la rabaa rabbiga aarsadaha xoogga badan baa idin jeeda oo idinka dambeeya addoommadaanna isagaa iskale isaga abuurtay oo leh oy adduunka u joogaan waa idinka baxsan waayeen waa idinka noolaan waayeen dowlad ma rabtaan magac soomaaliyeed ma rabtaan magac islaam ma rabtaan cadow baad u shaqaysaan cadowullaahi baad tihiin cadowullaahi ilaahay cadowgiisana waa tihin ummadda soomaaliyeed cadowgeedana waa tihin waana la iska kiin qabanayaa tan rabbina waa idiinda nin walowba guryahaagii carruurtaada ka samir nin walowba naagtaadii carruurtaada ka samir nin walowba gurigaaga ayay dabku gurigaagu ka bilaabanaya meel dheer aadi mayo qabiil aadi mayo isma aadi mayo baarlamaan aadi mayo belada xaqdiga kugu taageeraysa aadi mayo gurigaaga ayay ka hogmaysaa gurigaaga bay ka dilaacaysaa carruurtaada waa ka samraysaa taraytaradow carruurtiinna waa ka samraysaan naagihiinna waa ka samraysaan hantidiinna waa ka samraysaan idinkoo nool baa masiiba ku dhacaysa dab baa qabsanaya guryihiinna iyo carruurtiinna iyo naagihiinna waayo maalin walba waxaad dilaysaan wiil ilaahay ogya xaalkiisa hooyadisay ku soo korisay ama ciidan ha ahaado ama shacab ha ahaado ama gabdha ha ahaado ama maalin walba dad soomaaliyeed oo shacba aan waxba galabsan iyo ciidamadii dowladda baabi'inaysaan mishin baad ku dilaysaan carab imaaraad lacagay idin soo siisay baad ku baabi'inaysaan halyeeyadii waddanka saraakiishii waddanka dhallinyaradii soo kordhisay fuuturkii waddanka lacag yar baa la idin siiyo waxaa la yidhi dhallinyarada dhammeeya dhallinyarada baabi'iya xabadu yay ka harin halkaas ku afjara si waddankoo cidla aan u qabsanno carab baa idin soo dilay waa xasan sheikh waa shariif sheikh axmed waa cabdiraxmaan cabdishakuur waa hebelkaas odowaa waa faqi waa cabdikariin guuleed waa cibel sakiin waa ninka la yidhaahdo iikeen maxaan ku idhaahdaa kii madaxa caddaa muxuu ahaa cuquba ku dhacdaga ahaa waa badan yihin waa raggaas waa deni waa in cabdirashiid cumar cabdirashiid waa maxaan ku idhaahdayy ninka la yidhaahdo axmed madoobe waa aaranjaan oo dhan waa jeegaanta iyo biixi oo dhan waa faysal cali walaabe waa alasow waa kabtan ayuub inta fidmada wadda waa naqaanaa waa kii doqonka ahayo garaca ahayo mataqaanaa ormadu dhashay maxaa la yidhaahdaa iikeen afka balaqsanaa muxuu ahaa magaciisi shiina culey war kulligiin waa liisgaraysan tihiin liiskaa ku jidhaan war wallaahi bilaahi tallaahi dabka ilaahay intuusa idin qabsan ka hor baa daba idin qabsanayaayoo la iska kii qabanaya miidiyada waxaad ku haysaan waa ogna deni iyo waxaad u shaqaysaan iyo mucaaradka deniyow gurigaagu waa gubanahaya gurgaha gubta deniyow carruurtaada ma rabtid waad nacday ka samid gablan adoo ah baad adduunkas ku silcaysaa halow beniyow ku soco lifeki baan ku jiraa ku soco caawa 2 saacana ha gaadhee waa wadaynaa ku soco si sharaf la hufan oo soomaalinimo u hada waxaan
دي لاي نمان كلا دلا هرتو دتك يا اسكو قلبي سومالي نمدا يا اسكو قلبي قرن كي قبيله حلا كلا سارو نمان كلا دلا لحدا نينو لا دلي قرن او دينتين وصح قرن لا قتلي صحوة قرن لا قتلي غير لا قمدلين نمان كديلنا وا قرن دومي ولا مالك اهل مالك وصح wuxuu yahay male dadkeena walaalaheen maalin walba gumaadaayo oo dana shisheeyo u gumaadaayo inaan fiirsano waa qalad waa inaan shacabka Soomaaliyeed daanahay waa inaan danaheena ogaanaa maalin walba wax la dilaayo waa walaalkeen waa hooyadeen waa aabaheen وصح yaro waxa la dilayaa oo wax garad oo xiliyaay oo wixii wadanka ayaa maamulka la dilayaa waxa dilayana waa dad waaweyn oo qasaasiin oo ilaahay ka furtay rasuulkiisana ka furtaan diin islaam iyo diin gaal mid aanan garanayn aan duuntooda iyo shisheeye waxay ahayn aan garanayn ayaa meesha ayaa loo dhimanayaa lagu dabaqeynaa waa sax waxyaalaha dadka inay runta fahanto maanta dadka qol walba inay runta fahanto wax dhaama maanta ma leh because waxa la gumaadayo waa adiga dadka Kenyaatiya dadkooda ma dhimanayaan gurigooda iyo jeefaan shaqay haystaan way shaqaysanayaan waxbarashadooda u kala socoto caafimaadkooda annaga waxbarashadeena waa xiran tahay shaqooyinkeena waa xiran yihiin dalkeena waa burburay waxaana burburinayaan niman shisheeye kaal oo dawarjilif oo jaajuus waa sax aniga aan garanayn oo xataa hooyooyinkooda aan garanayn waa sax dowladdan aan waxaan ka codsan lahay dowladda fadhi wax ma tahay walaalayaal ciidamo badan ay keenteen xaram casaa dhawista gorgara dhawista daaq war waxaan hadayna wax tar lahayn walaalo iska kala dirno ciidamada hal iska kala dirno hadii kala nimankan waxa hala tuso nimankan nagama awood badno dowladda iyo qarandumis yaa awood badan dowladda maanta waxay dowladda awood badan dowladda waa inay isticmaashaa awoodeeda meesha shacabka maqashaa shacabka aan ku doorta inaa ilaalisid maana in maalmo mid la dilo waxa iska dhintaan dadka wixii la dilay hal dilo sax thank you brother wixii mana hal dhintaan ina doo maalmo waa laga wanaagsan oo dadkan loo sheego hal dilo asxaabta waxa la dilay maalmo ma soconayso dadka kala dilay waa dadka walaalaheen annaga ummadda dowladda waxaan u dooranay inayna ilaaliso waxaan u sabootreynaa inaa noo soo noqoto farmaajo noo soo noqdo waxaan rabnaa inuu amnigeena sugo inuuna ilaaliyo waxbarashadeena caafimaadkeena nolosheena taas wax noogu muhiimsan adduunka waa sax ugu muhiimsan oo dadka bini'aadamka noloshooda ugu muhiimsan waa caafimaadka waa waxbarashada iyo amniga helayaan shaqo amniga afartina ma hayno waxbarasho ma hayno caafimaad ma hayno amnig ma hayno shaqana ma hayno waa sax nimankan fadhiyo aljasiira fadhiyo dowladda way u daawanaysaa ragaa soo tababartay rag noloshooda lagu dheelay sumcaddooda lagu dheelay ayaa soo tababartay u dhiib xil kastaan ayaga u dhiib haddaana wax qaban karinina naga tala because nimanka lixda nin dadkii dilay waa naqaanaa maxkamadan sugaynaa dowladda waxaan ka sugaynaa justice waxaan ka sugaynaa waa sax dadkaas maxkamad noo soo saarto sax stooka qabato haddayna noo soo qabanaynin meesha ha ka wareegto dowladda ha ka dhaqaaqdo annagaa shaqadeena qabsanayna dadkaa meesha iska saarayna because wax la tutuugo nabad la tutuugo nabad ma noqoto nabad la tuugtuugo nabadna ma noqoto because maanta 12 waxaan ku haynaa dowladda wax ma qaban karto dowladda sidaan waay mucaaradka danahooday wataan kalaas inuu wadan ka dhacaa la rabaa reer la isku diro already xala waa bilaawada inuu ninkaas fakir wacal waay magaciisa ma rabo inaa sheego waa wacal waay inuu dhaho gacanayna midaa gacanta dhagaxa nooga dhacday hooyooyin baa gablamay hooyooyin caruur baa agoontowday sax sax gabadh baa walaal la'aan noqotay wiil baa walaal la'aan noqday hooyaa ubadkeedii weyday ayaa waxaa la dhahayaa miya ha dhintaan wixii manahay ha dhintaan wax soconaysa maaha waa mucaaradka dee waxa noogu muhiimsan qof inuu naga dhinto ma rabna anaga hal qof oo Soomaali inuu iga dhinto aad iyo aad Soomaaliga wax ii qiimo badan yahay boqol qofood ii qiimo badan yahay oo Kenyaatiya oo ka sharaf badan yahay oo ka xisbay badan yahay sax in shacabka maalin walba la gumaado la fadhiisto oo baasta iyo steak lagu kala cuno iyo qabato ma qabato absolutely qabato aniga absolutely steak in lagu kala cuno oo walaalaheena
qaarna badday qaato absolute qaato xabad qaarna badda qaato qaarna xabad lagu dilo qaarna bam lagu dilo qaarna keliya laga saarto qaarna la kufsado absolute baasta iyo cuntid iyo steak iyo malay iyo fish iyo cuntid absolute xabad doolarna account-kood kugu yaalo ima qabato taana ma qabato war shacabee indhaha furo reer maanta ma jirto dadka loo soo socdo lagumaadayo waa adiga waa shacab griig madaxa kaagama qorno daarood iyo hawiye iyo isaaq kuma dhaafayaan nimankaan absolute maba kala jecla tahay dameer dhintaa la tahay markuu kala jeclo waa sax maantuu rabana wuu kugu kacsanayaa horoska wuxuu ku dhahayaa hawiyaan nahay iyo deer baa maya lacag bay ku qaataan war waxaasoo dhan waa ayaga dhan hawiyuhuna waa laangaab isaaquna waa laangaab daaroodkuna waa laangaab waa sax qalabka saxda waa jareerta iyo gawayda saxa iyo reer xamarka hahey wacda waa asiibta iyo dadka laandheerka dadkaasaa nasaba mataqaaniin rasuulna mataqaaniin hawiyo ilaahay mataqaaniin rasuulna mataqaaniin isaaq sidoo kale daarood sidoo kale waa xaaraan saddexdaasaa na dhibay saddexdaas dawladda yaan loo dhiibay wallahi billah hoyo meelna laga taabta male war waxaa dadkii markaan diirabna cadaankii ajaanibka la sheekaysay ka taa haddana hoos baa loola celinaya maalin walba ninaa la dilay nin baa ka dhacay ninaa saas naagaa dabaq laga soo turo naagaa la kabsaday wiilaa la kufsaday gabaraa la kufsaday warnaa ma qabato nimankan baastay alla muruga weynaa shakuur caruurtiisa yurubay joogtaa deni ilmihiisa yurubbay joogaan dadkaan yurubbay keensadeen caruurtooda iyo kenya wax la burburinayo nolosha looga mucaaradka dhan caruurtiisa yurubbay jidhaa صح وي nolosha looga dheelayo waa adinka maahan ayaga maahan wallahi caruurtooda yurubtan iyo maraykanka iyo waxay geysteen asia iyo turkiga la kala صح waxbarashay ku wada jiraan adinkana ku aada waxbarasho iska dhaafay xataa biyaha u cabo laayahay biyihii yaa loo diidayaa cuntadii baa laga joojiyey cuntadii baa laga joojiyey lacagtoodii baa la yiri ma shaqaynayso war Soomaaliya afar qolo dhulkanii taagan iska saara afartaas qolo iska saara haddaad rabtiin Soomaaliya intiinan kala ka badan afartan qolo wala tuma war israaca war jareer weyn oo kaca garow kac gudunabo kac war wixii kaca brada intaan qabiiladan waa weyn oo dadkiina nyajarka kacamay ee nimankan iska kiciya doofaartu dhashay doofaar u dhashay weyn hawiye iska kiciya daarood iska kor qaada isaaq iska kor qaada noloshay diideen saddexdaasana dhibtay afartana nolosha u diiday mid ku dhaho nukaale mid ku dhaho anakaale mid ku dhaho unika waxaa leeyihiin male garac masadi faruuqin leeyihiin male mucaaradna nama dhihin kari qaran dumis baa tiiri adinka dhan qaran dumis baa tiiri aniga nima kala reebaayo muuse biixi ka soo bilaaw ilaa fucking hell muuse suuda ku gey mini kala reebaayo qowmuluud baa tiiri qowmuluud weeye qowmuluud aan la garanaynaa tiiri mini kala reebaayo waxaan kala reebaayna male ubadkiinana beri waa sugayaa miis la fadhiisan maayo cabdiraxmaan shakuur oo cunugaa dhashay miis la fadhiisan maayo waa ku dhahay wallahi aan ku dhahay iyo muuse biixiyo iyo khayrow wallahi inaan ilmihiina kursi la fadhiisanayn isku madigin gabdhahoodu guur male hataa xabadaa naga dhexaysa xabad masiibaaba ku dhacaysa ilaahay masiibadiisa ku dhacaysa cuqubada dadka carruurtoodu rajo male kuwaas cuqubada dadka ku dhacaysa ani waxaan arkay nin wallahi hooste taariikh aan la yaab laha waddankan ku arkay nin waxaan arkay ku dhahayo aabahay waa suldaan وانا قنيس والله بالله طلع اصلا من قنيسه وطن من طلياني الله سعود ويجي ماذا بيس نوان من سلطان ولا يقانو ورين كانوا سلطان وياه سبحان الله الله عز وجل والله سبحان الله اللهم نجينا وانا قنيس بكوس هو ود حالاتي صعد الهي ما هذا يقول يروح كان المينا قطه دولار سنه قنيسين نقول هذه مeel kastay geeyaan ilmahooday ka go'an هذا sheegin carruurtoodu inay badbaado حتى الشيخ او كان يوكي وانا كراجي بدو يكان oo fiisaha beenta lagu wala keenay in adeerta lagu soo galiyay oo ciidamada xoogga dalka loo soo qaaday waana Ingiriiska iyo Sweden fadhiyo oo maanta la weytron ku hayo una kaale oraya la faatiina sharcina meeshiin sharciyada jir ku soo gashayna waa ognahay iyo qabiilada ku diibatiin ma tiidin runta la isku sheegaya maanta wixii ka dambeeya waa la isdabagalayaa saaxiib in la istacweeyaa fiican laanteer adoo isku diib gumin dawle isku diib iyo gabooy wallahi waa la sheegayaa oo billaah tallah waa la sheegay uqsum billaah wala soo qaban waa sax soo qaban yurub dambe inayna buruxto
dhibaatada waa dhamaatay ceer iyo disability qaata adoo lixdaada lacag qaata disability sheegatay Soomaalina maanta xildhibaana ka tahay hooyada xildhibaan u tahay waa nimankan na rogay beeniyow nimankaasaa na rogay nimankan na baabaashay waa nimanka dibadda ka yimid waa babysit caruurta ilaaliyaan caruurta hooyooyinka u ilaaliyaan ma shaqaystaan guryahay fadhiyaan soomaaliyana fidmaday ka wadaan caruurtii soomaaliya ay baabi'inayaan ilaalshaan ma shaqaystaan magacyadooda ma qori yaqaanaan caruurta ilaalshaan youthka caruurta kan ugu weynaa sidaad uga shaqeeyaa waa security taxi driver ayaga dhan waa taxi driver wax social media ka qaylanayo oo dowladda ku dhegan waa taxi driver dulooba waa tugsadaa taxi driver UK waa adduun iyo aakhiraba dulooba dhe annagaan kula hadlaya ay tuugaan rasaas wax garade maxaad leedahay maxaad dowladda maxaa kula talin lahayd maxaa u soo jeedin lahayd ciidamada nisa ciidanka militariga booliiska gobolka galmudug amnigiisa kulla amnigiisa waafiqiyo amni ma haystaane waa ugu talagaleenoo xasan khayraa ugu talagalay inuu galmudug baaba'sho fiqi markuu uga dhigayay wasiirka difaaca maxaad ka leedahay arrimahaas ka hadal bal soona gaabi hadalka anu waxaan leeyahay dowladda hurdaday ku jirta hurdadaa ka kacdo dadka iyo dalka u dhaaratay iyo diinta u dhaaratay ilaalsha shaqadan nii dirsana noo qabta haddaanan noo qabanaynin walaalayaw ciidamada waxaan ka hadlayaa oo maxay ahayd liisa ciidamada liisa sidoonka Soomaaliya tii dadka naga dila saraakiisha waa taqaanaa soo qabta haddaanan soo qabanaynin walaalayaalo dad kale aan keensanayna hadda aan keensanna war dumar aan keensanna haddaan doonnay dad nindhaamaan keensanayna naga dhaqaaqaata haddii kale waxaa noo qabta maalin walba in ubad laga dilo mana qabato nama qabato oo naloo aamuso dowladda lahada ciidamada xoogga dalka kutubka gacanta u saartay ka dhawey kutubka gacanta u saartay ka dhawey maalin walbaa na leeyahay kismaayaa lagu duulay iyo bebaba waxa ku duulaysiina ma arko haram xataa ay dhehaysiin iyo gorgor iyo bababa waa boolo xubto haddaa waxa la soo baray wax qabadkiina aan aragno maya ciidamada isbishaasha turkiga wax qabadkooda waa aragna maanta nabad bay haystaan annagana na tusa lacag iyo qarash baa nagu soo baxay beeni howsha qabtatay maalin walba lagu dilo oo nin oo jabhad ku dilo adoo xifrad lagu soo baray saddex sano wax lagu soo alla ciil badana beeniya waxa waaye ciidankan wax waa qaban lahaa taliyaha madaxweynaha horta ciidamada amra madaxweynuhuna ma ogola inay dhaqaaqaan inay tallaabo qaadaan inay cid la dagaalaan istaanbay buu ka dhigay istaanbaygii way ku jaawareereen stress bay qaadeen waa yagaa meelaha kale aadaadahayo lagu laynayo marka madaxweynaha waxaa la rabay inuu dadkan amro oo dhojo ballan qabta immediately ama wood ha dhaco ama yuu dhicin ku soco waxaan baani bu'aale inuu qabto waay bu'aale waa inuu qabtaa maanta nimankii ku dhahay dowladda horta farmaajo walaalow daciifnimada intay ka keensaniyo daciifnimo yaraa ku haysta wallahi billah nimanka ku dhahay ciidamada xoogga dalka ka soo celiyay xuduudda ayaa muqdisho kuu fadhiyo nimanka ku dhahay liisa ciidamada liisa kala dirta kala dir nimanka ku dhahay ayaa xuduudda ku fadhiya waxay ku fadhiyaa muqdisho kalmoomnay way caddaysteen inaynan nabad ayna rabin dowlad ayna rabin waa caddaysteen dowladdaa laga rabaa tallaabo inay qaado dowladdaa la rabaa inay tallaabo qaado deni markuu dhahayay ciidanka iyo axmed madoobe markay dhahayeen ciidanka ka soo saar maxaa hayeeto muxuu ahaye bahalka ii keengado sow inuu dhaha ma ahayn bu'aala qabta haddayba saa dheheen bu'aala iyo qabta inuu dhahay ahay marka madaxweynuhu isaga waxoo dhan madaxa isu gelinayo waxaana ila tahay maanta markaan maqalay 6 qofood oo la dilay xalay aan maqlay 6 saraakiil markii la dilay anu waxaa niyadda ee gashay inuu wax la og yahay inuu wax ay qorshe isla og yihiin ay tahay waxaan anaga riwaayad ay noo jilayaan maya riwaayadii nooma jilayaan islama oga waxa weeye nimanka mucaaradka aha ku tashaday waxaa la rabaa in la isku diro mareexaan iyo habar gidir weliba cayr lafta la dhoo oo uu ka soo jeedo in cabdishakuur baa la rabaa fidmadaasna waxaa ka shaqeeyey baa la yidhi deni iyo xasan khayre iyo in cabdishakuur baa ka shaqeeyey fiqi baa la adeegsaday sheekadu saasay u dhacday wakhtigiina waa iga dhammaan rabaa daqiiqad baa ii hadhay bal soo gunaanad
ها أنا يعني الدولة وضد كعدد من كاس أنا ممكن يجد لها اللي يسوق أنا I don't care هذي عيرة هاي يعطي هاي يجوب كل هذي هاي وحي كلا يصير لمن كقرن يدلين لمن تراكيل قرن بعد انتي دفاعي ودن كان لحن دبعتي هالمر nimankaas reer igamaha nimankaas waa nimanka saraakiishii qaranka Soomaaliya ayaa la dilay nimanka dilana waa in maxkamad la soo saaraa hadii kale Cabdiraxmaan Shakuur iyo Fiqi waa in maxkamad la soo saaraa liisoo xiraayaga saas weeye si fiican baad u hadashay waqtigii baa iga dhamaaday dani in la soo xirno waaye dani iyo qeyrna in la soo dhigo waa wareey war kuwaas ma xiri karaan laa ilaaha illa allah kuwa ma xiri karaan dawladdu waa ka baqaysaaye bahalkii inkeen ninkii muxuu ahayeeto ee nimanka raggii dilay oo saraakiisha baabaashay nimankaa keliya ha la soo qabto nimankaasna fiqi baa amray waana rag fiqi amray oo la yaqaan baa la yidhi nisaana kuma dhacdo dawladdu kuma dhacdo qof mucaarad wax yeelay inay soo qabato beenyayna isu sheegin ani waxaan kale oo maqlay nimanka saraakiisha nimanka dilay waxaa dilay niman ciidamada ka mid ah oo ciidamada xarada ay ku jireen gaariga lagu dilay gaariga wuxuu ka baxay teen xaro uu ka baxay isku xare ay joogeen wadadan waa laga qaldan nimanka wadada gooniya loo diro waa qorshe ay socotay oo la dabadegay oo isla ogaa ilaa Yurub ilaa Soomaaliya la ogaaytan ها مدة لما لقى waxaa ku lug lahaa in Cabdishakuur Khayre iyo Deni saddexdaas oo arrintan soo alifay fiqi baana la adeegsaday fiqina waa jaajuus weeye iyagoo kala weeye halka waxaan arkay ninkii baadarka wacalka daar calaso wacal waaye iyo mid kale oo heer Puntland oo gaari isla saaran oo arrintan bay u heshiiyeen waxaa dal isu saarnay gaari aan isla saarnay Allah halay ninay gacanta nooga dhacday la ilaha illa allah Allah daar calaso maanta ingiriiska waxa uu joogo weedo wallahi loo billaah oo maanta dacwo ku billaah wallahi nasiibkiis ingiriiska ma joogo Holland buu joogaa والله بالله كان كلام لا سعدان جرمال بو جوغا وا كوي ليبيا فتدا لوغا خنيس كان ولا عليه يدير الموضوع ده يوروب والله عندهم ضنا حركنا انا waxaan sugoyaa oo boostay story waxyara ka ilmaamay ninkii soo fadhiistay oo u dhaaranay yarkii ciidamada istaafii calimaadi ahay oo dhaay maxkamadan kula soo koreyna soo saara ninkaas maxkamad waa arki doonay soo saara haddana reer badan oo reerahaada haddana maxkamad ka tegina reer badan oo reerahaada maxkamadda tagayaan oo ingiriiska la joogo ciidamadii calimaadi aan hayaa oo lagu wax ka go'een ingiriiska la joogo waa sax ragga lagu indiga soo gaa wallahi ingiriiska la joogo lacag u sheegayna waa la dawladana lacag kaaga soo qaadayna nimanka lagu soo xira insha Allah waqtiga waa dhamaaday daqiiqadii waa iga dhamaatay waa inoo habayn dambe haddii alla idmo markaa shaqada ka soo baxdo isoo wac markaasaaban life gelaya horta ma gelaayo haye habayn wanaagsan haye hooy halkaasaa sheekadeenni maanta ku dhammaatay waad u jeedaan shacabkii Soomaaliyeedow wiilashii yaryaraa gabdhihii yaryaraa dhallinyaradii maamooyinkii baroortoodu inay caddahay asay cad baan maanta madaxa noo saaran apologize baanu ka rabnaa dawladdu inay shacabka siiso inay dhahdo shaqadaa waa qabanaynaa nimankaa waa soo qabanaynaa sharcigaannu hor keenaynaa intaasaan dawladda ka codsanaynaa wax kaloo ay qaban karnaa ma jirto ciidankana ha la geeyo bu'aale ha soo qabtaan gacanna kuwooda gacanna mataqaanaa ku difaaca Jubbaland horaan idiinaylo wax idin hor jooga ma naqaan ciidankii waa kumbad hubkoodii waa kumbad 5 daqiiqo ilaa Jubbaland oo dhan ku qaban karaan balaaya dawladda aamusisay madaxweyne hadal ciidanka amar adigu amar ciidanka amar wixii ka dhacay shughul kuma lide annaga ka mas'uulay amar ciidanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabowga badan iska daa kac madaxweyne madaxa kor u qaad ra'iisul wasaare waddanka xoreeya nimankaana soo qabta jeelka la isugu keeno foodka ha la cabaan sidii ilkaas alsan waa loo tooganaa insha Allah biidnillah halkaasaan uga baxayaa caawa lifekaa soo galay halkaasaan uga baxayaa wixii khayr Allah ka dhigo wixii sharana Allah naga qabto waddanka yagana ilaahay noo badbaadsho madaxweynaha yaga iyo madaxda yada sare oo dhan Allah noo badbaadsho
kuwii soo noqdo allah idinka dhigo markaasaad nebiga u qoraysaan jawaasiista voodkuna wakhtigiisa waa inuu dhacaa